waa galab jimco ah bisha May ee sanadka 2024-kana waa 3. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4tii galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah dunida oo maanta laga xusayo maalinta xorriyadda saxaafadda oo sanadkan halkudhig looga dhigay soo tebinta wararka la xiriira deegaanka. aadaan ugu baraarugsannahay ururkeena Prosage marka la dhaho waxaana naga caawiya arrimahan ansomta badana naga caawiya. waxaan aad maartay tababaro waxaan bixinaa oo la xiriira dhinaca deegaanka iyo wariyaasha iyo inay ka warramaan arrimaha deegaanka, cimilada ka hadlaan, ilniina ka hadlaan. waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqiidada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno dhallinyarada Soomaalida ee jeelasha ku jira ama jeelasha ku yaala dalalka Yurub. dhibaatada ugu weynayna haysataa waxa weeyaan mukhaadaraadka ay carruurta iibiyaan. horta muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan arrimaha ay sheegteen waa wada jiraan. arrinta ugu horeysa waxa weeyaan waa dhaqanka laftiisii oo dhaqankii aynu carruurteenna ku abaabin jirnay markii ay joogeen waddankii iyo dhaqanka halkan markay waalidku yimaadeen ee halkan yimaadaan oo aad u kala fog. laakiin waxaan rabaa inaan yar faahfaahiyo keliya dhinaca qaabka iskuulka laftiisu iskoolada naftoodu ay u arkaan ilmaha madow. qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna galabnimo, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan gargaarka bini'aadanimo ayaa sheegtay in 100,000 oo qof ay halis ugu jiraan dhimasho haddii Israa'il ay weerar militari ku qaado magaalada Rafax ee koonfurta Gaza, islamarkaana aan la fasixin gargaarka bini'aadanimo. hadalka qaramada midoobey ayaa soo baxay iyadoo 7 qof oo caruur u badan xalay lagu dilay weeraro cirka ah oo ka dhacay magaalada Rafax oo ay ku sugan yihiin dadka ugu badan ee ka barakacay dagaalka Gaza, islamarkaana xudun u noqotay dhibaatada bini'aadanimo kadib markii laga xayiray sahayda gargaar. dhinaca kale, kooxda Xamaas ayaa maanta sheegtay inay wafdi u dirayso Masar si ay wadahadallada xabad joojinta halkaasi uga sii wadaan, taasoo calaamad cusub u ah iskudayga dhexdhexaadiyaasha caalamiga ah ee lagu doonayo in lagu helo heshiis ay gaaraan Israa'il iyo Xamaas laguna soo afjaro dagaalka. kadib muddo bilo ah, dadaalada xabad joojinta ayaa u muuqda inay gaareen meel halis ah, iyadoo dhexdhexaadiyaasha Masar iyo Maraykanka ay rajo muujinayaan maalmihii lasoo dhaafay, laakiin fursadaha heshiiska ayaan la ogeyn haddii Israa'il ay aqbali doonto joojinta weerarada iyadoo aysan weli gaarin hadafkeeda ay sheegtay inuu yahay burburinta Xamaas. hogaamiyaasha caalamka ayaa ku booriyay Israa'il inay ka digtoonaato duulaan kasta oo lagu qaado Rafax, laakiin ra-iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu ayaa ku adkaysanaya inuu fulin doono weerarka militari ee uu qorsheeyey Rafax xitaa haddii wax kasta ay dhacaan. Turkiga ayaa dhinaca kale Khamiista maanta ayaa sidoo kale xalay sheegay inuu joojiyey dhoofinta iyo soo dejinta dhammaan wixii badeeco ganacsi ah ee kala dhexeeya Israa'il ilaa inta ay Tel Aviv ka ogolaanayso in gargaarka bini'aadanimo uu si aan caqabad lahayn ku galo Gaza. warkan oo xalay soo baxay ayaa wasaaradda ganacsiga ee Turkiga ay sheegtay in la joojiyo soo jeedinta badeecadaha uga imaanaya Israa'il iyo inay dhinacooda wax u diraan. tallaabooyinkaas ayayna sheegtay Ankara inay sii wadayaan ilaa dowladda Israa'il ay xanibaad ka qaadayso gargaarka bini'aadanimo oo ay ka joojisay dadka ku dhibaataysan Gaza. wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'il Katz ayaa Khamiistii shalay ku eedeeyay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan inuu jebinayo heshiisyadii u dhexeeyey labada dal kadib markii uu xanibay badeecadaha ay dhoofiyaan. tallaabadan ayaa ah dhacdadii u dambeysay ee xiriirka sii xumeynaysa kadib markii Turkiga oo ka mid ah dhowr wadan oo muslimiin u badan oo markaasi aqoonsan Israa'il uu xanibay ganacsiga kala dhexeeya dalkaasi bishii Abriil.
ciidamada ruushka ayaa gudaha u galay saldhig ciidamada cirka oo ku yaala dalka niger oo ay ku sugan yihiin ciidamo maraykan ah. sidaasi waxaa wakaalada wararka ee reuters u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan waaxda gaashaandhigga ee maraykanka. tallaabadan ayaa daba socota go-aanka ay ciidamada militariga ee xukunka niger ay ku amreen ciidamada maraykanka inay dalka ka baxaan. saraakiisha militariga ee maamula dalka ku yaala galbeedka afrika ayaa u sheegay maraykanka inuu dalka kala baxo ku dhowaad 1,000 askari, kuwaas oo ilaa afgembigii sanadkii hore ahaa saaxiib muhiim u ah dagaalka ka dhanka ah kooxaha muqaawamada ee dilay 10 qof, malaayiin kalena barakiciyey. sarkaal sare oo ka tirsan gaashaandhigga maraykanka oo diiday in magaciisa la sheego ayaa sheegay in ciidamada ruushka aysan ku dhex milmin ciidamada maraykanka, laakiin ay isticmaalayeen hangar gaar ah oo ku yaala saldhigga airbase 101 oo ku dhegan garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee diori ham ee magaalada caasimadda ee niami. tallaabadan ay qaadeen ciidamada ruushka oo ay wakaalada wararka ee reuters ahayd tii ugu horeysay ee soo tabisa ayaa ka dhigaysa in ciidamada maraykanka iyo kuwa ruushka ay aada isugu dhow yihiin xilli xifiltanka militari iyo midka diblomaasiyadeed ee labada dal uu sii kordhayo sababo la xiriira dagaalka Ukraine. waxay sidoo kale dhalinaysaa su-aalo ku saabsan masiirka qalabyada maraykanka ee dalka niger kadib bixitaankooda. maraykanka iyo xulufadiisa ayaa lagu qasbay inay ciidamadooda kala baxaan dhowr dal oo afrika ah kadib afgembigii xukunka keenay kooxo ay ka go-an tahay inay iska fogeeyaan dowladaha reer galbeedka. ugu dambeyntiina hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa mas-uuliyiinta dowladda Kenya ku eedeysay Khamiistii inaysan si ku habboon oo wax ku ool ah uga jawaabin daadadkii ragaadiyey dalkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 170 ruux tan iyo markii uu bilowday xilli roobaadka. kooxda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay New York ayaa sheegtay in dowladda ay mas-uuliyad ka saaran tahay dhowrista xuquuqda aadanaha si ay uga hortagto waxyeelada muuqata ee ka imaaneysa isbeddelka cimilada iyo dhacdooyinka halista ah iyo inay ilaaliso badqabka dadka marka ay masiibo dhacdo. waaxda saadaasha hawada ee Kenya ayaa digniin hore u dirtay inta uusan bilaabmin xilli roobaadka, laakiin madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa 24kii bishii hore dhisay guddiga jawaabta, waqtigaas oo ku dhowaad 100 qofba ay kusii dhinteen fatahaadda inta uusan guddiga shaqaba bilaabin. Kenya iyo meelo kale oo ka tirsan bariga Afrika ayaa waxaa harqiyey daadad fara badan kuwaasoo saameeyey ama barakiciyey malaayiin ruux oo gobolka ku nool. kooxda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in dowladda Kenya aysan cashiro ku filan ka qaadanin xilli roobaadkii sanadkii hore oo daadadkii ka dhashay ay ku dhinteen 100 qof, islamarkaana saameyn ku yeeshay isu socodka dadka iyo dhaqdhaqaaqyada gaadiidka iyo ganacsiga. dadka ay saameeyeen daadadka ka socda deegaanka Mai Mahiu ee galbeedka Kenya oo ah aagga ay ku dhinteen dadka ugu badan ayaa iyagana sidoo kale ku eedeeyay dowladda Kenya inay ka gaabisay wax ka qabashada. dhageystayaal, warkeennii dunidana waa naga intaa.